sidee baynu heli karnaa macaanka cibaadada? waxay isweydiin la marka hore cibaadadu ma leedahay dhadhan? haa, way leedahay. sida cunada iyo cabidda iyo hurdada iyo wixii lagu raaxaysanayo o dhami dhadhan uu leeyahy. waayo waxyaabaha kale ee jidhku uu ku tamarinayo jidhkaa dhadhamiya, cibaadadan ruuxdaa dhadhamisa. waxyaabaha had iyo jeer keeni karaa in aynu cibaadadan dhadhamino waxaa ka mid ah weynaanta ilaahay, inaad aada u dareento, an tashcur cadamat allahi tacaala. ha eegin cibaadada ee waxaad eegtaa ilaah aada u cibaadaysanayso. xataa camalkaad samaynaysa yaraantiisa ha eegine, waxaad eegtaa ilaaha aada caabudayso cadamadiisa. dembiga aada samaynaysa yaraantiisa ha eegine, ilaaha aada caasiyayso weynaantiisa eeg. mar kasta oo qofka qalbigiisa ilaahay ku weyn yahay, cibaadaduna way usii macaanaataa. waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid ah inay cibaadadu inoo dhadhanto istikfaarta, toobadkeenka, inaynu mar walba ilaahay dembi dhaaf badan weydiisano, ilaahay in badan dembi dhaaf weydiisano subxaana wa tacala inuu inaga dhaafo, toobad keeno, toobada aada u badino. waayo qofku markuu had iyo jeer toobad keenayo, ilaahayna dembi dhaaf uu weydiisanayo, waa garawshiyuu bixiyey. macnaa inuu gefsan yahay buu qofkani garanaya. qof isla hagaagsan oo isla toosan oo afka taagaya maaha, laakiin insaan daciif oo dembiilaa inuu yahay ayaa uu garanayaa. addoommaha waa taqaanaayo, bani aadamka qofka aada gef ka gasho, haddii aada u garowdo oo aada u soo noqoto, wuu kaa saamaxaa, wuu ku cafiyaa. laakiin intood godob ka gasho haddaad ku adkaysataa tilaa anaa saxan, kaama dhaafayo. ilaahay weynaa maxaad u malaysay subxaana wa tacaala? haddii adigoo gafsan aana toobad keenin oo aana dembi dhaaf weydiisanin, dee dembigii baa sii badanaya. taa laftigeedaa dembiya. markaa istikfaartuna aada bay muhiim u tahay. waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a inay jannadu kuu muuqato, oo hankaagu weeyo halkaa aada higsanayso, oo jannada ilaahay si aad u heli lahayd aada ka fikirayso. waxaa barbar yaalla naarta ilaahayna subxaana wa tacaala, in iyaduna ay kuu bidhaamayso oo dabkaa holcaya ee ilaahay u diyaarsaday dadka uu ka aargoosanayo isaga ku gacan saydhay, kaana inaad ka cabsanayso. janno aada doonayso iyo naar aad ka cabsanayso. oo ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaad aada u akhrido, labadaasay u badan yihin. inuu ilaahayna janno weydiisanayo iyo raali noqoshihiisa. wuxuu ka cararayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan ilaahay weydiisanaya inuu ka badbaadiyo jannada, naarta ka badbaadiyo. maxaad u malaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xawla haatayni nudandin, asxaabigii habka uu ducaysta nebiga wax ka weydiinaya wuxuu lahaatay annagu ilaahayna jannaanu weydiisanaa, naarna waa ka magan galaynaa. markaa taasina waxyaabaha kaa caawinaya ka mid tahay. si kooban baynu u sheegnay, oonu yaro dadejinay. waa baab aada u ballaadhan, laakiin inaad baraarugtaa unbaa muhiima. talow cibaadadan aad gudanaysaa ma ku khushuucaysaa? dareen ma kuu leedahay? ma kuu macaan tahay? mise waa daldalaysaa un? markaa labadaasaa kole inaynu ismiisaanaabaa muhiima, nafteennana aynu raajacno. ilaahayna waxaan ka baryaynaa wixii khayr aynu qabanayno inuu naga abaalmariyo, janno inagaga abaalmariyo, dembigeenana dhaafo.